waxaa dhowaanahan hoyga magaalada muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo si isdaba joog ah u soo booqanayay siyaasiyiinta soomaaliyeed qaybahooda kala duwan hase yeeshee xaaladda ayaa hadda ka gudubtay booqashooyinka siyaasiyiintii gudaha kadib markii maanta uu hoygiisa ku qaabilay safiirka dowladda turkiga u qaabilsan soomaaliya danjire albert actes mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii sagaalaad ee dalka ahna mid ka mid ah musharaxiinta ugu saameynta badan ee u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa u muuqda mid balaariyey kulamada gaargaarka ah oo uu la yeelanayo siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan si kastay ahaataba madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay safiirka dowladda turkiga u fadhiya u qaabilsan soomaaliya danjire albert actes danjiraha ayaana si heer sare loogu soo dhoweeyey hoyga farmaajo ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulanka uu qaatay dhowr saacadood ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira xaaladda dalka farmaajo iyo danjire albert actes ayaa si gaara ugu hadlay si wadajirna u falanqeeyey xaaladda siyaasadeed ee dalka oo ay ka mid tahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka ku midaysan golaha mustaqbalka soomaaliya sidoo kale intii uu kulanka socday waxaa looga wada hadlay arrimaha amniga dalka dhaqaalaha iyo fursadaha maalgashi ee u baahan in la xoojiyo kulanka dhex maray maxamed cabdulaahi farmaajo iyo danjire albert actes safiirka turkiga u jooga soomaaliya ayaa loo fasiri karaa inuu ahaa mid xambaarsan farin siyaasadeed iyo mid diblomaasiyeed marka hore wuxuu muujinayaa in kulamadii hore ee ku koobnaa siyaasiyiinta gudaha ay hadda u gudbeen kulamo heer caalami ah tana loo fasiri karo inay muujinayso inuu farmaajo wado ololo siyaasadeed oo xogan qoraal uu boggiisa facebooka soo dhigay uu kaga hadlayey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulankan uu la qaatay danjiraha soomaaliya u jooga dowladda turkiga ayuu ku yidhi waxaan kulan midho dhal ah la qaatay safiirka dowladda turkiga u qaabilsan dalkeena danjire albert actes oo igu soo booqday hoyga aan ka deganahay magaalada muqdisho danjiraha waxaan ka wada hadalnay xaaladda siyaasadda amniga iyo sidii loo xoojin lahaa kobcinta maalgashiga dalka dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga uu naga dhexeeyo xiriir soo jireen ah ayaan ku bogaadiyey taageerada ay mar waliba u muujiyaan dalkeena ayuu ku yidhi qoraalkiisa maxamed cabdulaahi farmaajo xilli uu ku soo qoray boggiisa facebooka ugu dambeyn kulankan dhex maray farmaajo iyo danjiraha turkiga u jooga soomaaliya albert actes ma ahayn mid ujeedkiisu ahaa sawiro la wada galo iyo salaan iyo sheeko balse waxay u muuqan kartaa inuu ahaa imaatinka danjirahani mid la xiriirta farin siyaasadeed iyo dhambaal uu ka sideeyey madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan